fadhigii aqalka golaha wakiilada Somaliland ayaa la hor keenay mooshi ka dhana lacagaha la dursaaray ganacsatada gawaadhida kala soo degta dekada weyn ee magaalada Berbera ee muddooyinkii u dambeeyay ganacsatadu saska ka qaaday ugu horreynna xildhibaan Siciid Cimli Rooble oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada oo mooshikani dabada ka riixayay ayaa iftiimiyay ujeedada uu daaran yahay mooshinkani shirkadda golaha wakiilada ujeedada soo jeedin mooshin laalaya takaaliifta xaaraanta ee la saaray gaadiidka marka maarne qodobka 700 ee xeerarka golaha wakiilada ee ogolaanaya in mudanaasha ay soo gudbin karaan mooshin u gudbin karaan golaha wakiilada marka maarne qodobada 3 dastuurka faqradiisa 2 afraad iyo qodobka 4 faqradiisa 1 dastuurka qaranka marka maarne cashuuraha xaddaafka ee hore u saarnaa gaadiidka dalka marka maarne dhaqaale xumada iyo sicir baraka ku habsaday shacbigeena danyarta marka maarne lacagtan hadda lagu xukumay gaadiidku ay tahay takaaliif aan soo marin golaha wakiilada waxaan golaha u soo jeedinaynaa in la laalo takaaliifta sharci darrada ee la saaray gaadiidka intaa kadibna xildhibaanada golaha wakiilada ayaa cod u qaaday mooshikani waxaanu u dhacay sida tan gaadiidka cusub marka golaha fadhiyo 50 mudane mudanayaasha arrintaa waafaqsan gacantaa taageen تكاليفتا عدي ديمجرتو طبعا مدركة مصري قدومي مهضينين وها صحين لالو تكاليف حسنون تنظر قيستا كلنا guud ahaanba markii goloweynuhu laalay lacagta ganacsatadu ka cabanayeen waxa warfidiyeenada si wada jira ula hadlay oo amuurtani dareen farxadeed ku soo dhaweeyay ganacsatada gawaadhida keenta oo aan ka fogeyn goobta mooshiku ka socday ummadda Somaliland dhammaanteed inta xaq jecel ee nacab dulmiga mar labaad waxaan u mahadnaqayaa golaha wakiilada shirgudoonkiisa oo aad loo soo dhaweeyay iyo dhammaan xildhibaanada goloweynaha aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay xaqii ayaad u hubiseen waxaan maanta farxadayda aad iyo aad wax la soo koobi karo maaha ummadda reer Somaliland golaha baarlamaanka gudoomiyaha mahadweyn baan u soo jeednaa shacbiga Somaliland ee taageerina waan mahad celinaa saxaafadda waan mahad celinaa wax badan laga qaatay waxay farxad baan horta hal hadli karnaa alxamdulillah waxay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaas waxa waa sharci darro xaraan u ahaa ummadda reer Somaliland ee arintan la qaatay iyo baarlamaanka iyo shirgudoonka waanu soo dhaweynaynaa hambalyaanu leenahay sharciga xaraanta maanta la naga qaaday eegina la gaari meesha ka soo cashuurin ilaa inta birtaan laga laabayo maanta birtii waa laga laabay waxaan leeyahay hambalyo wax kasta aan u sheegnaa xukuumaddu cashuurtii hore ee ay nagu amartay ee ay nagu soo rogi jirtay baarlamaanku hasiiyana sharciga ahaydaan bixin jirnay ee markii nala qabsaday waxba noo qaban weyday markii nala qabsaday lagu qabsaday dekadii Berbera birta la dhigay cashuurtii waxba noo qaban weyday waxaan u sheegaynaa dawladdan xukuumadda u sheegaynaa in cashuurteedu wax noo qabato qof ka yimi London ayaa dawladda oo dhan hoos yaacdaa tiifiyada hoos yaacaan baabuurta lagu qarash gareeyaa dadka oo dhan ay lacag bay ku baxdaa waa islaamiyada London ka timi waxba qabato dadka iyagii joogay ganacsatada ah ee waagi bariyaba la tuujinayay ee lacagta bixinayay ee wadanka u soo halgabay ee wadanka ka shaqeynayay ee maalin walba lacagtii dhaqaalaha bixin way dhagaasana laga furistay si kastaba te waxa xusid mudan go'aankani saaka golaha wakiiladu gaadheen ayaa noqonaya kii ugu adkaa ee soo mara golaha wakiilada Somaliland ee imika xilka haya
xilli golahani lagu dhaliili jiray inay isku dhiibeen xukuumadihii Somaliland soo maray. Badri Goosaar Maxamuud, telefishinka caalamiga Star, Hargeysa.